بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهي قالي وايد سلامة انت جنالكي كحرن انت كصوبيري دونتو انت او عصبي انت هور الى جوج جرت دمانتي وايد سلامة تاسو عندك سلام الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan idin wadaa asxaabay sida ujeedin maasha Allah alaab yar oo aad u qurux badan arag roon dhadhankana maasha Allah ka sii daran taasoo ah ceesh ama shawarma chicken insha Allah kaasoo aad u qurux badan qof kastana oo ka heli doono biidnilaahi kariim qof yar iyo qof weyn haddii aad soo tijaabisid. haddana waxaan guda galaynaa sidaan u samaysanay. halkan waxaa inoo yaala sida ujeediin burkaasoo ah qiyaastii 1 kilo waxaan isticmaalaya. halkaasna waxaan ku haystaa liibita iyo sokor iyo cusbo. halkan waxaan ku haystaa 2 macalqo oo saliid ah, biyo. burka waxaan isticmaalaya waa 1 kilo. waxa aan ku darsanayna waxaa waaye 1 macalqo oo liibita ah, 2 qaado oo sokor ah, in yar oo cusbo ah hadba qiyaasta u baahan tahay. marka inta qalalneed ayaan isku daray. hadda markii aan isku daray markii dib ayaan isku qasayaa. markii aan isku qaso waxaan ku darayaa 2 macalqo ee saliida ahaa. 2 macalqo ee saliida markii aan ku daray ayadana sidoo kale waan ku soo qasayaa. kadib waxaan ku darsanayaa 2 xabo ukun ah. kadibna waan ku qasayaa. ukunta ayaan si fiican u qasayaa. marka ukunta ayaan ku baabi'inayaa insha Allah. marka ukunta ku baabi'iyo ayaa arki doontaan biyahana in yar ayaan ugu darayaa insha Allah si aysan igaga badanin oo aan ugu baahanin qayb kale bur ah. hadda biyihii ayaan soo qaatay in yar ayaan ugu shubanayaa. kadib waxaan ku qasanayaa qaadada silikoonka ah wax yar. kadib markaan isku dhex geliyo kadib waxaan bilaabayaa inaan gacanta si fiican aan ugu rifaaqo. haddana qaybtii labaad ayaan ku darsaday biyaha sidoo kaleenta. haddana waan isku qasayaa. waa is dhex gelinayaa ilaa intii tabarteeda aad qiyaastii waxaan qasayaa waxaa waa 5 ilaa 7 daqiiqo. waa inaan si fiican u xashtaa. marka hadda waxaan bilaabayaa inaan gacanahayga oo ii nadiif ah aan ku qaso. in yar oo biyo ayaan ku darayaa. in yar oo biyo markaan ku daray oo aan soo qasay maasha Allah sidaas iigu soo baxday waa ujeedaan. haddana waan soo daboolanaynaa. markii inoo soo qamiiray kadib oo aan daboolka qaadnay sidan ayaa inoogu soo baxday maasha Allah ujeediin aad ayay u soo furtay. waa 30 daqiiqo kadib insha Allah. marka hore waxaan diyaarsanaynaa ceeshka ama shawarmada hadba sidaa u taqaanid. kadibna waxaan diyaarsanaynaa insha Allah qudaarteena iyo chickenkeena dhexda ka gashan lahayne markaan asiga diyaarin oo aan meel iska saarno biidnilaahi kariim. hadda waxaan soo saartay meeshaan. kadib waxaan sameynayaa wanku bur yar si uusan iiga qabsanin qaybta hoose ee dhulkaas si uusan iiga qabsanin ayaan waxaan mar ku shubayaa in yar oo bur ah. in yar oo bur ah markii aan ku shubo kadib waan simayaa marka si uu si siman oo iigu noqdo oo yacni uusan ii kala weynaanin oo dhinac uusan u weynaanin inkastoo aysan gacan wax simi karin laakiin haddana inta karaamkeena waan dadaalayaa insha Allah. marka hadda waxaan u gooyay qayb ayaan u gooynayaa. 4 qayb ayaan ka dhigayaa qiyaastii 4 qayb markii aan ka dhigo hadda waa kana 4taas qayb ayuu ii noqday. 3 qayb oo kale xagga ayaan dhiganayaa. qayb kamid ayaan soo qaadanayaa. marka waxaan bilaabayaa inaan fidiyo. markii aan fidiyo insha Allah waa googoynaa. waa arki doontaa sida uu gooy hadba wixii haysta ku goosan kartaa. galaas ku goosan kartaa. baaquli yar oo kale ku goosan kartaa. wixii markaas agtaada yaalo ee adigu ku fudud ee qiyaastiisa aad rabto. hadda waa kana markii aan soo fidiyay qafiif zaa'id ma aha yacni mana buurno waa qiyaas kan ayaan ku goosanayaa aniga. caagan yar ee balaastikada ee waxyaalaha lagu goosto macmacaanka ama sidoo kale wax alaala wixii aad ka rabto buskudka waxyaalahaas ayaan ku goosanayaa. kadib waan soo qaadanayaa insha Allah. markii aan jarjaro kadibna waxaan soo saartay saxankaas ayaan saartay qaybtii aan ka jaray kadib dib ayaan u celiyay. sidoo kale haddana hal labaad ayaan soo fidsaday. sidoo kale haddana waan gooynayaa. markii aan gooyo haddana sidoo kale waxaan saaranayaa saxanka. kadib sidaas ayaan ku soo wada dhameynayaa. markii aan soo dhameeyo ayaa arki doontaan insha Allah wax yar inuu ii soo qamiiraan rabaa oo yacni uu saxanka oo ii saarnaado si uu yacni igu noqdo wax jilicsan insha Allah. marka hadda kulli ayaan soo wada dhameynayaa. markii aan soo dhameeyay
waxyar way soo yaro fuureen wuu soo kacay. marka hadda waxaan aadayaa dhankaas iyo dabka ayaan wax soo saartay bir yar ayaan waxaan ku shubtay saliid yar. saliidda markii aan ku shubto kadib waan ku masaxayaa. markii aan ku masaxo kadib waxaan bilaabayaa inaan ceeshkii xabad aan u saaro qiyaastii 4-3 hadba intoo ii deeqo ayaan saaranayaa. hadda markii aan saaray marba dhinac ayaan u gidinayaa insha Allah. qaybta hoose sidaas ayuu iigu soo guduutay, qaybta kore ayaan u gidinayaa. marka maasha Allah qurux aad ayuu u qurux badan yahay, aad ayaan loo jecel yahay maasha Allah. qofkii rabo insha Allah ka faa'iideysto, siin share gareey insha Allah si uga faa'iideystaan asxaabta kaleeto. like-ta insha Allah naga baqiilinaha, wixii tahay tusaalani commentiga insha Allah. waa kana haddana qaybta kaleeto ayaan saaranayaa. marka in yaroo saliida ayaan birta ku shubay si aysan iiga qabsan ama ay si fiican iigu guduudato. dabka aan ku isticmaalina waa dab aad u daciif ah, dab daciif ah waaye. dabkayga daciifka ayaan kusii karsanayaa insha Allah. marka hadda qaybta iigu dambeysay ayaan hadda saaranayaa. markii aan saarto insha Allah waan soo baganayaa. markii aan soo bagtane waan isku imaanaa insha Allah. haddana waxaan bilaabanaynaa inaan qudaarteena iyo chicken-keena aan suubsano. hadda digsi ayaan dabka soo saartay, wax yar oo saliid ayaan kusoo shubtay sida ujeedaan. marka aan saliid kusoo shubtay kadib waxaan soo qaadanayaa chickenka aan qiyaasta aan isticmaalayo waa 1 kiilo iyo 2 xabo oo basal aan isku soo jarjaray. hal mar ayaan iskula shubay insha Allah sida ujeedaan. hal mar markii aan iskula shubay marka waan isku qasayaa insha Allah si ay isugu kala dhexgalaan basasha iyo chickenka insha Allah. marka chickenka iyo basasha ay isdhexgalaan ayaan waxaan ku darsanayaa insha Allah wixii aan ku darsaray. waxaan haystaa xawaajigeena caadiga ahaa, filfil, huruud iyo cusbo. intaas ayaan ku darsanayaa, uma baahni xawaaji badan. xawaajiyaasha badan waxay leeyihiin inta badan laab dilaac ama laab jeex sida u taqaanid. markii intaas ku darsaday waan isku soo gidisanayaa. markii aan isku qaso oo si fiican aan isugu qaso oo biyaha oo inuu dhacaankii ii guursan aan arkaayo ayaan waxaan ku darsanayaa marka 3 barbarooni oo kala nooc waa kii jaalihii, guduudkii, cagaarkii, basal iyo waxa kale oo ku darsanayaa kamsar caleen. intaas oo kaliya ayaan ku darayaa maanta insha Allah. intaas oo kaliya markii aan ku daro si fiican ayaan isugu soo qasqasanayaa. markii si fiican isugu soo qasto kadibna waan soo diyaarsanaynaa ceeshkeeni iyo wixii aan ku sii samaysan lahayn insha Allah. nala socdo biidhnillaahi alkariim. haddana waa kana chickenkeeni saxankan ayaan kusoo shubtay maasha Allah. waxaa halkan ku haystaa salar, waxaa kaleeto haystaa sida ujeediin waa ceeshkii oo sidaan u soo jarjaray. gudihiisa waa kaasaa wax malahan oo cajiin ah sidaas ayuu yahay. wax yar ayaa midida afka qaybta hore ugu kala gooy. waxaa kaleeto haystaa yaanyo, waxaa haystaa salar, chicken iyo yaanyo iyo ceeshkii. marka waxaan bilaabayaa inaan isku habeeyo. hadda waxaan ku ridanayaa salar ayaan waxaan ku riday ceeshka gudihiisa ayaan geliyay. kadibna intii oo ii qaadayo oo chickenkii iyo qudaarta aan isku kariyay ah ayaan ku shubayaa. markii aan ku shubo kadib waxaan soo qaadanayaa yaanyadii kadibna waan gelinayaa. kadib waxaan soo qaadanayaa saxankii aan saar lahaa oo ku diyaarsanayay. kii labaad ayaan haddana soo qaadanayaa. asigana sidoo kaleeto salarka ayaan gashanayaa insha Allah ama chickenka hadba kii aad rabto ayaad ku hormarsan kartaa. sidoo kaleeto chickenkii ayaan ku shubanayaa hadba intoo ii qaado. hadduu 2 macalka ii qaado, hadduu 3 macalka ii qaado. kadibna waxaan ku darayaa isna sidoo kaleeto waxaan kaleeto ku ridanayaa 1 xabo yaanyo ah. maasha Allah ujeedaa sidaas ayuu qurux badan yahay. marka sidaas ayaan kusoo wada dhameynayaa insha Allah. nala socda. markii aan soo dhameeyay asxaabay kulli aan kusoo dhameeyay oo sida hadda idin tusayay aan usoo wada dhameystay sidaan iyo igu soo baxday oo quruxda badan oo maasha Allah ah oo arag u roon. quraac ah ka dhigin karto, qada ah ka dhigin karto, casho ah ka dhigin karto maasha Allah.
uu kaa diidayo malaha waqti allaale waqtigii rabta ayaa isticmaali kartaa si wuxuu ku fiican yahay subax hore quraacda iyo cashadoo kaleeto maasha allah marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta uga faa'iideeya asxaabtiina insha allah wixii tale i tusaale commentiga hoos igu reeba haddii aad ka heshay like-ta insha allah ha iga baqiilna like-ta haddii aad igu cusub tahayna maasha allah subscribe dheh waa bilaash haddii aad subscribe ii dhahdana maasha allah waa mahadsantahay thank you very much yaa shukran dhammaantiin waxaad leeyahay soo dhawaada gacmo furan